maalintii axadda ahayd waxay noogu yimaadeen FBI da guriga ilaa ay waxay dhamaayeen 23 inay ka badnaayeen ma aqaano guriga waxay nagu soo qaadeen weerar kor iyo hoos ah habeenkii oo dhan aan iska soo jeednay habeenkii waqti dambaan iska seexanay waqtiga guriga nagu soo garaaceen inoo yimaadeen waxay ahayd 12 ilaa 12 inta u dhaxaysay albaabka ayay waxay u soo garaaceen xoog albaabkii baan furay gadaal bay yiraahdeen u noqo waan naxay markaas ay igu yiraahdeen aawe maxamed markaasaan ku yiri maxamed meel uu jiro ma aqaano markaas waxay igu xijiyeen aaway Adnaan markaasaan ku yiri Adnaan wuu jiifaa saddex baan ag istaagtay intii kale waxay ku kala faafeen guriga saddex booliis la socotay in saddex ahaayeen afar ahaayeen ma kala garan karo booliiskii iyo qaar kalena waxay aadeen wiilashii meesha jiifeen markay guriga ku soo faalaleen kor waxay ka soo dajiyeen gabadhayda ayagoo xabad madaxa kaga wado iyo waxay soo dajiyeen odagayga caruurtii baa markaas soo carartay oo hurdada ka soo kacday oo waxay isku dareen qaylo iyo buuq markaas waxay yiraahdeen kama dhaqaaqi kartiin fadhiga bal adigana maartay markay idin yimaadeen FBI du waxay sameeyeen anagoo albaabka sii galaaya marka oo guriga ku soo noqday waxaan arkay afar gaar meelaha dad hub badan saa u xambaarsan dad weer u socdo kale oo maartay ciidamo ku duulay waxay dhaheen everybody banaanka yimaado kama maana qabin dadkii oo banaanka soo jafeen odayga iyo kii yaraayo ku xiga ka kale way xireen odaga marka bahasha ay ku xireen halkan ka goysay kama ay dacbicin ka yar baa wuxuu maxaa noo baadar garaynaysaa markaas yira shiraab marka hayayaan markay noo yimaadeen Adnaan ay ka xeesteen oo waxay rabeen ay guriga ka qabsadeen waxay raaheen weerse Maxamed Tabalis weerse Maxamed Jaajirkiisi aawa telefoon Maxamed leeyahay markaasaan ranama dhaqan meel ku jiro way raadsadeen way heleen markay arintooda ay dhameysteen picture guriga ka qaateen annagana ay sidii xawayaanka ay nagu haayaan fadhigi ay caruurtii isku wada kordaadsan tahay because qabowna wuu jira labada albaabna way nagu balaqeen markaasaan ku yiri caruurta ina jaakada ii soo siisiin oo bustiyaal ii soo siisiin ma sheegi kartiin naag baa ku jirtay haween ah gadaal bay u noqotay busto iyo jaakada ay ilmihii iigu soo qaaday ka bacdi markay Adnaan ay baxsadeen maxamed dhowr jeer weydiiyay aan ka jawaabin aan ku yiri adno meel maxamed jiro baan waxaan wacay maxamed looyarkiisaan wacay marka maxamed looyarkiisa wacay aan ku yiri anaga habinkaana maanta dhacay maxamedna meel uu jiro ma aqaano markaasuu igu yiri ana soo ogaanay maxamed meesha uu joogo adiga hal saac kadib mise 2 saac kadib uu igu soo celiyo looyarkii maxamed wuxuu yiri waxa lagu haystaa California markaasaan California ka xalkay markaasuu igu San Diego bay ku xiran yihiin waana labo igu yiri marka adigana wiilkaagu markaasi waxa weyn California isaga ku xidhnaa anaga marka war uma haynin laakiin ayaga baan weydiiyay markii ay reerkii dhan gabagabeeyeen oo banaanka dhangeeyeen hooyaday iyo caruurtii kulli waxaan ku iray manila hadal karam kasii saacadana lama hadal kartid markaasaan iray wiilkayga ma garanaysaan meesha jiro may telefoon baan ku siinay anaga soo wac wiilashu inay baxayaan oo ay Syria aadayaan mid warka hayseen wax war uma haynin anagu inay baxayaan kale hayayaan walaalo waxaa jirtay cunug nagu dhaxlamnaa ilaa iyo muddo 10 bari ah oo gurigeena ku dhex jiray oo meel kasto cunug Soomaali u taagan yahay tagay oo ayaga inoo soo adeegsadeen marka ma rabo halkan inaan magaciisa aan ka sheego basaaska ay leeyihiin warkuna sii ha wiilashu inay baxayaan oo ay halkaas aadayaan mid la socoteen kolley wax sarab ab ahoo ilaa iyo long xoogaa dhowr bari 10 bari camal lagu diyaarinayay waxaan ahayd marka wiilashiina asaga kolley wuxuu geeyay aan u maleynayaa sandeegana sidii uu wuxuu ugu dhiibay FBI ee hooshii uu asaga soo qabtay halkaas ay ku ekeed halkaas ay kala wareegeen maxamed wiilashu inay kooxahan xaq jirka ku lug lahaayeen warma ka haysay shiino ana mala brief karaysin caanurteeda waxaas ku lug leedahay wiilkaaga adigana yaana waxa weeyaan inuu kooxahaas la xiriiro ama wax noocaas uu ku dhex jiro warma ka haysay aniga wiilkayga wiil shaqaysto ahaa wuxuuna rabay inuu guursado wax uu shaqo dadkaas uu ku lahaa ma jirin FBI du goorma xiriirkeedan la yeesheen waxa la sheegay wiilasha inay dhowr jeer isku dayeen inay kooxahaas ku biiraan oo New York laga celiyay mar goorma idin la xiriireen iyagu dhowr jeer bay wax waraaqaha noo soo direen oo maxkamadda waxa nagu geynayeen marka oo ina wareysteen oo neeraaheen anaga mana la shaqayn kartaan anaguna waan caawinaynaa waxbaan siinayna baabuur baan gadaynaa waxa minima caawin karnaa anagu sidii xaaladda wiilashu ay tahay waxaad ka warhaysaa ma jiraa labada wiil oo San Diego California ay ku haystaan ilaa hadda xaaladooda meel ku sugan yihiin inay nool yihiin xitaa ma naqaano